بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو وعانو وناكسن داوديالي دلهانتين مير والبو جوگتاني سي والبو ادي مقليسان اماد اي داونيسان ولا لها مسلمين تا مير والبو جوگان اد ايان اسلاميا انيغوكو احتراميا اماكو سلاميا سلامتا اسلامكا كدحيسا مسلم يو قالبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز داوديال ان waxaan rabaa waxyaabo badan inaan ka hadlo balse waxa ugu muhiimsan ee aan ka hadlayo ama diiradda aan saarayo klibkan yar aan ugu talgalay caawa inaan idin la soo jaan qaado aad idinkan ila jaan qaadaan insha Allah walaalaha daawanaya soo gaara klibkan waxaan ka codsanayaa inay subscribe saaraan channelkeena cusub ee Hormal Media sidoo kale waan jeclaan lahay barnaamijyo badan inaan ka qabto halkaan inkastoo uu ka soo hordhacay klibkan oo ah klib runtii aan jecel yahay inaan aga hadlo waxyaabaha ka taagan horta dalkeena Soomaaliya waan u jeednaa walaalayaal problema ka jiro dalka sidaan wada ognahay halkan joogno waa dalka Soomaaliyeed qof walbo oo weyn ama caaqil ah ama hadduu yar yahay waa ka warhayaa sidoo dalka ama marxaladahu ku sugan yahay dalkeena hooyo maanta qof walba ay ka dirigsan tahay balse waxaan rabaa inaan halkaan aga wacyi geliyo khaladaad fara badan oo ka dhaca badanaan reportyada ama wariyaasha ama saxaafadda gudaheedba ugu horeen waxaan ka socdaa aniga magaca wariyaasha ee magaalada Muqdisho ama waxaan ka socdaa bulshada Soomaaliyeed qof walba wariye ahna wuxuu ka socdaa bulsho Soomaaliyeed marka main bontigan rabo inaan diiradda saaro waxa weeye inaan ka hadlo saxafiyiinta falkay ku dhaqmaan bariga sababtoo ah waxyaabo far badan baan indhahayga qabtaan waxaan ka codsanayaa marka hore wasaaradda warfaafinta Soomaaliyeed wasaaradda warfaafinta ayada ay ka mas'uula saxaafadaha gaagaaban ee ku yaala gudaha magaalada Muqdisho saxafi walban wuxuu hoostagaa wasaaradda warfaafinta maadaama iyaga ama ay ka faal qaadeen ama aaba ay dhehayso idaacad maanta falxun ku dhaqmaysa ama qof saxafi ah waxyaabo xun ku fal dhaqmaya waxay aaba dhehaysaa wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya taasi waa kow marka waxaan ka codsanayaa si qaas ah anagoo codsanaya saxafiyiinta bulshada Soomaaliyeed haddana waxaan rabaa inaan ka codsado wasaaradda warfaafinta inay si toos ah ula dhaqanto ula xisaabtanto isku keento wariyaashii Soomaaliyeed iyagoo marka inay dareensiiso ama training qaas ah siiso ama inay maadaama sharcigeeda ay ku dhaqmayaan ama wax walbo iyaga sameeyaan ay aaba dhehayso wasaaraddaasi in ay ka faala qaado wariyaashaasi qaladka ku dhaqmaya maanta wari walbana qaladku geysanayo bariga maanta Allah u naxariisto yani khasaarada saakay dhacday afaafka hore Muqdisho suuq weyn ee magaalada ku yaala degmada Xamarweyne weey dib badan dhacay horta inta dhimatay oo Ilaahay og yahay Allah u naxariisto intii ku dhaawacantayna Ilaahay caafimaad taam ah Allah siiyo Allah kaaga barnaya Ilaahay caafiyo inta dhimatana Allah u naxariisto marka waan ognahay qaraxa qaabka u dhacay saacadu dhacay waan ka warhaynaa qaladaadka ay galaan saxafiyiintu waxa kamid ah aan number 1 ugu soo qaadanayo idaacadda kulmiye radio Shabeelle radio Dalsan idaacado far badan baan arkay waa inta khilaafka ka jiro malahan hadda idaacadaha way ka sameeyeen qaar baa sheeganaya magac idaacad kale sheegtay qaar baa sheeganaya tiro dhimasho ah oo idaacadaha kale sheegeen laakiin idaacadaha ugu horeeya waa kulmiye iyo Shabeelle iyo BBC hadda BBC waa idaacad ajnabi ka ah Soomaaliya ka basoo tagba naga dhaaf BBC
marka waxaan ka hadlaynaa idaacadaha muqdisho ku yaala wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho khaasatan idaacadda kulmiye iyo radio Shabeelle. For example qaraxi maanta dhacay waxaa la soo sheegay ugu horeen radio kulmiye warkeeda wuxuu soo galaa 7 sac waan dhageystay waxay sheegeen in 15 qof ay ku dhinteen halkaasi tiri inta ka badan ay ku dhaawacantay aan halka ku maqal walow ay jiraan khasaare maaliyadeed waa sida xaqiiq ah haddii beenteena ay tahayna waad daawan kartaan website-yada idaacadda kulmiye waad daawan kartaan waxay ku soo daawacday ama ay sheegeenba ama ay tibiyeen 15 qof inay ku dhinteen dayib waan dhageysanay qalad maaha bulshada saacana u dhageysanay bulshaduna u dhageysteen kaba soo tag 7 saac iyo bar waxaa soo gala warka idaacadda Shabeelle iidna waan dhageystay iyadana waan dhageystay waxay sheegtay 7 dhimasho ah 10 oo dhaawac ah waad dhageysan kartaan iidna Shabeelle bal fiiri halka idaacadda kulmiye ay sheegtay 15 halka idaacadda Shabeelle ay ka sheegtay dhimashada 10 qofood bal adiga isbarbar dhig qaraxiina waa hal oo idaacadaha idaacad waxay doonto iska sheeganaysaa mise idaacad walba waxay rabtay iska sheeganay marka balbalaamka taagan wuxuu weeye idaacadda sheeganaysa tiro inta la eg idaacadda kale sheeganaysa tiro inta la si eg qaraxiina uu yahay hal meel oo ka dhacay oo hal qaraxnu yahay tirada kala duwan ee idaacadaha ka kala sheegteen dhibka keenay maxaa weeye taada kale ma wariyaashi ba qaldan reportjada ma qaldan saxaafadaha ma qaldan kaba sii daranba BBC waxay sheegtay 7 dhimashada inay yahay qof 7 sheegtay qof 10 sheegtay qof wuxuu sheegtay 15 kaba sii daran idaacadda dalsan 20 ay sheegtay iyadna waa aran ajaa'ib su'aal marka la isweydiiyo oo qaladaadka sidee ku dhici karaan qaabkee idaacadda miyay muwaalan yihiin ama sidee wariyaasha ku howlgalaan yacni waa la isweydiin karaa marka la isweydiiyo waxaa ku soo baxaya in idaacadda ama qofka wariyaha reportka ahi laga yaabo inuu tirooyinka soo arkay dhaawacyo ay jiraan in isbitaalada loo qaaday dabeeta dhaawacaasi ay noqdaan dhimasho qaraxa markuu dhaco report baa imaanaya oo wariye idaacad ka socda goobta qarax ka dhac buu imaanaya dhaawac buu tirsanayaa dhimashadu salbaaranaya tiradii uu qaadaya isla dhaawac uu tirsaday ayaa hadan dhimasho ka soo bixi isbitaalka marka la geeyay dhaawacaasi taas way dhac kartaa taas lama diidino oo wariyaha wuu dheh karaa inta la eg baa ku dhimatay halka dhiri inta la egna ay ku dhaawacantay balse isbitaal hibil ayaa loo qaaday tiri inta la eg oo dhaawac ah dhimashaduna waa inta balse dhaawacyo waxaa jira inta oo ay dhibaato fara badan ka hayso ama dhaawac nafeed ah tirooyinka ka soo bax dib ayaan la soo xaqiijin doonaa taas way dhici kartaa wariyaha wuu iska soo xaqiijin karaa dhimashada iyo dhaawac waxay tahay for example qaraxa wuxuu dhacay abaara 4 sac ama 5 sac meelahaas camlo dhacay idaacadda 6 sac warka way soo deysaa 7 sac way soo deysaa 9 sac way soo deysaa 7 sac ibar way soo deysaa mala diidino 5 sac oo qaraxa dhacay ma iska soo baari weysay 5 sac ilaa 7 sac imisa dhaawac imisa jiri karta falgal waxaa ku sameyn kartaa dadka dhaawaca loo qaado isbitaalka falgal oo ku sameyn kartaa mudana wariye fadlan waxaan ka codsanayaa in aad si bulshada u qanciso aadan been u sheegin idaacaddan sharaf dhac ku keenin yacni intaa waxay tahay hubso waxa dhacay qarax dhacay hala soo cararin 5 qof ka hor imaatay oo mid ah oo dhaawac ah hala soo cararin hubso
aniga waxaan sameynaa anaad ii jeedin waxaan ahay report waxaan sameeyaa markaad dhimashada qarax agtiisa kasoo xaqiijiyo idaacadda ma aado ee waxaan si aadaa dhaawacyada la sii qaadayaan si aadaa laga yaabo dadka dhaawaca loo qaadaa isbitaalka markii la geeyo meed ay naqdaan iyagana waa ku darsadaa tiradiyaan ku darsadaa tiradii oo joosta ah dadka dhaawac fiican oo lala tacaali karan aan soo ogaaday inta dhaawac xeedan dabeeta geeri wadan wajahday aan soo ogaaday toos anigoo fiican aan u tabin karaa bulshada warka laakiin taasi waxaa sabab u ah wasaaradda warfaafinta hadday wariyaashu dhan seminaar u qaban lahaayeen ay wariyaashu dhan control ku sameyn lahaayeen ay ku baraarujin lahaayeen in bulshada iyo dalka mas'uuliyad ay ka saaran tahay shaan uma dhaqmo lahayn subhanallahi wa bihamdihi nin walba wuxuu doono ayuu iska sheeganayaa markuu qarax dhaco horta dalkeen dhibaato ku sugan yahay problema haysta mudana wariye si ixtiraam leh oo nabadda ku jirto oo wanaagsan oo lagu aamini kara xaquuqda bulshada u dhor bifadla xaquuqda bulshada u dhor laana aniga waxaan nahay wariyaal ka howlgala dalka Soomaaliya hase yeeshee mas'uuliyadda xambaarnay waxay tahay inaan dusha saarano waxa dhibaato ku imaan lahayn bulshada Soomaaliya wariye xaqiiji dhibaatooyinka barnaamijyooyinka dhacdooyinka aad galayso xaqiiji wax been ha ku qancin dhageystayaashaada ma jirto idaacad si daacad aaga shaqaysato dalkeena marxalad xun ayuu marayaa idaacad 20 dhimashay sheegatay idaacad 15 dhimashay sheegatay idaacad 7 sheegatay idaacad 10 ay sheegatay hadda waa adigiye dhageystayaalka kay aaminayaan warkan 10 ka sheeganaya waa wariye warkan sheeganaya 70 ka waa wariye kan 15 ka sheeganaya kan 20 ka sheeganaya waa wariye bulshaduna wariyaha way aaminaan ma dhageystayaalka been ku qancinaysa adiga wariyaasha sharaf dhaca oo keenin khaasatan waxaan la hadlayaa dadka reportyada ah walaal adigoo mahadsan ha ay arkin xumaato waxaan ahay wariye maxamed cabduqaadir xuseen xilka hayso waan ku lahayaa dhibka dareensantahay waa kula dareensanahay problemka ay haysta maanta iga soo xanaajiyay ama aan caloosha iga soo huriyay waxay tahay dhibaatada maanta haysata dalka hase yeeshee wariyaasha qaabkay u dhaqmayaan taasi waa arin cajaa'ib ah haatan waxaan ku suganahay goobta xafiiska warar ayaan qorayaa marka arin dhib ayay noqon kartaa wariye adigoo mahadsan warka iska xaqiiji bulshadaada wax fiican u tabi teeda kale wasaaradda warfaafinta idna waxaan kula talin lahaa maadaama wasaaradda warfaafinta tahay arin musuqmaasuq meeshan ma taalo lagama hadlaayo waxaan ka hadlayna waxay tahay isjirka bulshada Soomaaliyeed iyo saxafiyiinta saxafiga waa horumarka dalka dalan saxafi lahayn dadkiisa wax ma ogaadaan marka idinka maadaama tin wasaaradda warfaafinta ugu horeeyo maamulka wasaaradda warfaafinta fadlan xaqiijiya idaacadaha website-yada wargeysyada wakaaladaha ka howlgala dalka Soomaaliya idinkoo xaqiijinaya ama la tacaalaya nin walba qalad ku geystay idaacadda hadii lagu control lahaa waa iska xaqiijin leh marka ina ogaatiin idin muhiim ay tahay aad u maasantihiin aad u maasantihiin inta i daawatay inta i daawananba walaalahayga waan ma celinaya qaabka quruxda badan ay daawdeen walaal hadda report tahay hadalkayga ha u qaadan xumaato ee waxay iga tahay wanaaji ee horumari saxafiyiinta Soomaaliyeed fikirkan qabo waan soo bandhigan karaa walaal ha xanaaqan adigoon sidoo kale fikirka qabtid waa ii soo bandhigi kartaa muhiim waxa ah inaad isla jaan qaadno aada u mahadsan tahay subscribe noo saar channelkeena cusub adigoo mahadsan channelkeena cusub ee Hormaal Media noo saar channelkeena cusub ee Hormaal Media noo saar
subscribe noo dheh sidaad u aragto fikirarka kala duwan ee aad ka aaminsan tahay bulshada Soomaaliyeed iyo saxafiyiinta ka howlgala dalka Soomaaliya. aad iyo ugu mahadsantihiin klibkan yar idin soo doobay xumaata mahan oo dhiirigelin ay iga tahay inaad fikirkaaga iyo maskaxdaada wixii ku jiraan aad sharaxdana waa wax aad ku muhiim ah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.